dadka la dhageyanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigisti oo aan ka soo gudbino waraysiada xiisaha leh ku saabsan arrimaha Soomaaliya dhageystayaal sidii aad horeba ula socoteen waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga shir laga hadlayay arrimaha Soomaaliya waxaa tan khadka telefoonka ee magaalada Istanbul si toos ugu jira Ali Maxamed Ahmed oo Ali Daa'un loo yaqaano Ali Daa'un si fiican ma maqashaa si wanaagsan adoo soo koobaya go'aanadii ugu dambeeyay shirka ka soo baxay wax nooga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim adeer shirka waa la isugu yimi 23 iyo 24 buu ahaa aad iyo aad baa xamar looga yimi magaalada la yiraahdo Puntland lagama iman laakiin dadku wuxuu u badnaa wufuud waa magaalada Muqdisho nimanka Kismaayo ee Jubbaland la yiraahdo way yimaadeen kuwa Baydhabo way yimaadeen maamul goboleedyadan habaarka qaba sheeganaya ala kulli xaal uu shirkaasi macnashida watacab waxa ka soo baxay kumnikayga aad aragteen oo ah shirka inaan waxba ka soo bixin mar haddii ay maqan tahay Puntland maxaa yeelay Somaliland ma go'day iyaguna way go'ayaan arrinka isaga waxa ku dadaalay oo ku dhawaaqay oo ku dheeraaday Ahmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland arrinkaas sidaas ayuu dabadeedna tiisi bay noqotay macnashida watacab beesha caalamkana waxay ugu muuqatay inay tahay wax garan maxaa yeelay haddii ay ku dhawaaqaan nimankan habaarka qaba ee Puntland la yiraahdo waanu go'nay Soomaaliya awalba iyadoo liidatay bay ka sii liidanaysaa marka kumnikayga soo baxay ayaa baytal qasiid ku yahay oo aad u xoojinaya bal in la baadi doono nimanka la yiraahdo Puntland okay calaw laakiin beesha caalamku maxay isu indhatiraysaa soo awalba lama soconin shirka maalintii la fadhiistay ka hor cidda aan imanayn iyo cidda imanaysa ma markii meesha la yimaado ba kuraasta la tirinaya oo la odhanaya reer Puntland ama reer Hiil ma joogaan miyaan hore looga warqabin inaanay imanayn Puntland waa la talayo oloshay Soomaalida run laguma baran nimanka beesha caalamkuna horaan u sheegayo waa been lixaad weeye waa been lixaad oo Ilaahay Soomaali ugu dawgalay oo iyadu lafteedu aanay run aqoon markii ay arkeen meesha waxa jooga inay koonfurta shishe ee Soomaaliya yihiin cidba looma joojiyeen oo in Cabdirashiid oo ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri cidda loo joojin maayo ninka Ahmed Madoobe ayaa maanta u dambi dhaafay nimanka Puntland oo ku hagoogtay oo yiri kumnikayga haddii aan laygala tashan shirka waan ka baxayaa shir jaraa'idna waan qabanayaa waana dhoofayaa waxana aan ku dhawaaqayaa Jubbaland inay go'day inta weeye inta laga baqay marka ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid isagu wuxuu yiri Puntland haday maqan tahay loo dhicin maayo loo joojin maayo isaga ayaa yiri loo joojin maayo muran badan baanu aniga iyo Ahmed Maxamed Islaan iyo nin raagan la yiraahdo iyo wufuud wafdi yar oo ka socday Jubbaland waa u tagnay ay iyo aflagaadaaba ka dhacday oo ra'iisul wasaaruhu wuxuu caayay wafdiga Jubbaland wuxuu yiri harti ana Puntland ana maxaa idinka galay dabadeedna waxa lagu yiri wadniyo meesha u socoto cidina garan mayse joog nibaa ku magacawdo prime minister ka dhigtay Ali Daa'un Puntland maxay ku maqan tahay ma sheegteen waxa ay ku maqan yihiin ee ay shirka ugu soo qaybgali waayeen wallahi waxay sheegteen garan maayo laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuga ninkii isku dhifta isaga u dhutiya reer Puntland 4.5 ka iyaga keenay tumaalahoodii iyo midgahoodii iyo yibrahoodii iyo kuwii yaryaraaya aqliyaadka ah ma aanay qorin 3 kursi 3 Carab Saalax mooyaane inta kale waa Muqdisho codka waa lagu muquuniyo waa sanadaha keenaya in prime minister kasta la rido waa qodob federal systemka iyaga keenay iminku la xumaaday oo waxay lahaayeen hawiya diidaya hawiya anaga xamar ku ogolaysiinay markii hawiya ogolaaday ba hadda ay Puntland la xumaatay marka waxa ay ku maqan yihiin iyaga sheegi doona ninkii qaadwalaha aha
ninkii qaadwalaha ahaa ee qaadku ka dhacay war maxaa kaa dhacay buu yidhi kan dambaa sheegi beesha caalamka iyo axmed madoobe iyo aniguba iyo rag fara badan haddaanu garoowe gelaynaa iyagaa sheegi doona waxay ku maqan yihiin shirkaa markaa goormaa loo ballamay hadda ay waxba ka soo bixi waayeen kubnakayga waxaa ku qoran in la doono waa la doonayaa waa loo tegayaa waa la dhegaysanayaa haddii ay wax caqliya la iman waayaan oo ay odhan waayaan sool iyo sanaagna maamul ha laga sameeyo gaalkacayo oo cumar maxamuud degan yahay oo cali saalax degan tahay oo mareexaan degan yahay oo biciidyahan degan yahay oo reer maxamuud degan yahayna dhuuso mareeba raaceen garoowe iyo boosaasana maamul ha noqdeen intaasayba arrintu ku kooban tahay laakiin iyagaa daarood u xirtay backage sanduuq bay daarood ka dhigteen sanduuqiina biyaha ugu soo galay reer puntland si kastaba ha noqotee dadkii kale calow ka soo qayb galay shirka ee isku yimid maxaad is leedahay bay isku afgarteen ama ay ku rajo weynaayeen ama ay ku niyad samaayeen oo ka dhexeeyey wax allaale iyo wax ka soo baxay turkiga ma jiraan haba yaraatee laba shir buu ahaa midna ganacsi buu ahaa midna wuxuu ahaa siyaasad ka ganacsigaaba ugu xumaa chamber of commerce-ka ninka la yidhaahdo ee muqdisho gabaydhe wuxuu keenay uun tijaaradii muqdishou keenay wuxuu xitaa u quuri waayey dahabshiil daarihiisii ka dhisnaa meesha ayuu u quuri waayey inuu ku soo daro waxaad moodaa ganacsigiina in imika siyaasad uu gelayo oo laba sii burburayo awal ganacsigu siyaasadba kuma jirin xuduudna ma lahayn laakiin cali daacunu dadkaasi meesha ku shirayey ee mas-uuliyiinta ama ganacsiga dhaqaalaha ha ka hadlaan ama dhinaca siyaasadda ha ka hadlaane waxaad moodaa shirku marka uu socdana in midi ku taaga xaalkooda uu noqdo marka laga dareerana hodheelada iyo makhaayadaha shaha laga cabo inay wada fadhiyaan oo wada qoslayaan gacmaha is haystaan maxaa soomaalida ka siya soomaalida waxa ka sii anaa kuu sheegaya soomaalidu ilaahay ma taqaan waa kow run ma taqaan waa laba wadaniyad ma laha waa saddex qabiil waa anaaniyo reer hebel aan wax tarayn bay qarannimadii siisteen anaaniyay siisteen nin waliba lacag buu raadinayaa dhulkay iibinayaan cirkay iibinayaan badday iibinayaan dalkan waxaad moodaa dadkii lahaa inay maqan yihiin ama ay idlaadeen waayahay maxaa is leedahay rajada soomaali in mar kale haddana shir kale iyadoo laleeyahay mar boqolaa maqan in mar kale shir la isugu yimaado oo la isfahmo oo la isu soo dhawaado rajo intee lagbaad ka qabtaa cali dacno laa taqnaduu min raxmatillah ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi laakiin soomaalidu sidan ay tahay haddaanay ka waantoomin ilaahay ha u naxariisto dalka waa la qabsanayaa mabda'aasaan aaminsanahay dalka waa la qabsanayaa dad baa ku beermaya af soomaaligaa la baranayaa oromaa ku beermaysa xabashi baa ku beermaysa kiiniyaan baa ku beermaya naagahay guursanayaan abti miidan bee loo noqonayaa 10 sanoo soo socota saasaa dabadeedna loogu beermayaa salaamo ayuu noqonayaa dalkaasi haddaan ilaahay soomaali caqli fiican ka keenin hadda shirka markaad ka dareertaan oo maxay tallaabada qaadaysaan xagee u socotaan anigu waxaan u socdaa hadda waxaan tegayaa meesha la yidhaahdo imaaraadka ayaan tegayaa anigu nin siyaasi oo xog soo doontay baan ahaa tigidhkaanaa iska soo bixiyey hundheelkaanaa iska bixiyey xasan shiikhna kama aanan socon ina cabdirashiidna kama socon masiirkaygii qaranka soomaaliyeed meesha lagaga hadlaayo anigu horena waa u tegi jiray imikana waa tegey berrina waan tegi doonaa si aan la iiga warramin waynaan xogogaal u noqdaa gabadhii la furay waxay tidhi meeshii laygu furi doono fagedna ha joogo waayahay calow haddii su-aal kale aan ku weydiiyo maadaama tahay siyaasi madax bannaan waxaan ku weydiinayaa waxaa dad badan ay aaminsan yihiin oo wararku ay sheegayaan in uu ku leeyahay saameyn weyn generaal gabre oo ah nin ethoobiyan oo arrimaha soomaalida inta badan u dhundooda oo gacan ku leh in shirka dhexdiisa uu ka waday qolooyin uu la shirayey iyo kuwo kale uu ka shirayey dabeetana xoogaa buuqi u dhacay arrimahaasi maxaad noo sheegi kartaa wallahi anigu buuq dhacay garan maayo laakiin gudiyahay ima aad goyseena barhkay baa kugu jira jawaab nin siyaasiya oo fuula baan ku siiyey gabraad sheegaysaaye yurre iyo yemle intuba gacantay kugula jiraan wayna kugula jiri doonaan haddii aana tashan cali daacun ugu dambayntii ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa galabta waa maxay rajada aad qabtid ee aad u sheegaysid ee soomaalinimo maxaad odhan lahayd
ummadda Soomaaliyeed horena waa lagu sheegay caawana waa lagu sheegayaa dalkiini iyo diintiini iyo dhaqankiini iyo dadnimadiini halis bay ku jiraan halis waxaa la doonayaa dad dhalinyaro ah oo kaca oo SYL ah oo wadaniyiin ah oo aan qolo lahayn oo isbadbaadiya oo dalkii badbaadiya allihiin hadduu alla yahay intaasaan idiin sheegayaa haddaad diidaan kuwanaad magacaabaysaan aad leediin gabre iyo marre iyo yurre iyo intaa qabsan doona oo ilaahay buu og yahay وهاك علي هذا يضمح سنتي علي محمد أحمد علي داعون أو خدك تلفون كنا نقول رمي سووا شو مجال اسطنبول ودك تركيا هل كاسو كقريب قال الشركة لقى الرسالة أرمها الصومالية أو لوسو قبل إسلا تركيا دقيقة هكا هذا ورئيس قاسي أنا ذكرت تبينني أما بعد ذكرت قد بينني وهو يعني ماذا سجستي على بدينا أحيانا أنت أسدنا السود أيا إنه قابل سن أنا أقول على حلال أيا ورئيس قاسي قاضي تاني يكون كان دمبه ورئيس كانوا طلع وعند سيرة سيدا ينبت قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصار رسولنا يقول سلام لك مقعيس مكانه. هذه أفضل ما على الدعوة هذا ما صنتي. Thank you.